الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. saacaddu waa 12 doornimo. tirada xildhibaanada soo xaadirtay waa 128. kooramka annaga ma dhammaa. sharciga maanta inoo yeelana waa sharci aad muhiim uga ah dalka. marka insha Allah waxaan rajaynaynaa fadhiga xiga xildhibaanada waxaan ka codsanaynaa inay kooramka soo dhamaystiraan. maanta hawshaanada halkan ay ku dhamaatay. waa dareemi kartaan xildhibaanada badankooda waxay jiraan xaflad Sheekh Shariif oo lagu furaayo xisbigiisa. ilaahay idinku dhaarshay annagu waxaan lacag u qaadanaa waxa waa shaqadeena lacag aan u qaadanaa. dadka maanta ka maqash lacagta ay qaadanayaan xaraan miya ama xalaal ay maxal lahay xalaal waay. anigu waxaan dhihi lahaa xaraan waay. waxa waay dan oo waxay u maqan yihiin oo gaar ah. shaqadii loo igmadana tan waay. saa ka warqabtid baarlamaankan waajibaadkiisa waa gudan waay. waxaa jira xildhibaano hadda dibadda iska jiro oo shaqadooda aan qabanayn. maalin diyaaradan soo raacay Nairobi anoo u soo socdo maxal lahay xamar markaan fasaxa ka soo laabtay mar aan baxay. waxaa diyaaradii la saarnaa qof idhahay waxaan maqanahay 10 bilood. ninka 10 bilood maqan oo shaqadan ka maqan oo loona soo doortay in maxal lahay umadiisa wax u qabto waa arin aad u falxun waay. markaan waxaan leeyahay mas'uuliyadda maxal lahay annaga waa na saaran tahay shacabka matalaynaa. mar walbana haddana waxaa la eedeeyaa mas'uuliyiinta ugu sareysa. مسؤولين توقف رئيس وحكهري برلمان كان إيديسا كوريس ما إن فرماجي غير اللي هذا برلمان كوا إيديسية ساكور قبطان لبا قيبض وقيبسية مر والبابا وكو وزير محلها وحكوجرو وزير حكومة الدفاع iyo ku wasiir doonay oo mar walba ayagana mucaarada ay naftirkooda hadii wasiir laga dhiga xukuumaddu waa difaaci lahaayeen wardana gaar ha fiirinayna dalkiina dadkiina wax u qabta xaalad hadda lagu jiro waa la socotaan nasiib daro way 128 qof inay maanta inta ay joogto inta kale ay jiraan xafladda oo lagu daahfuraayo maxal la xisbigaas himla qaran nasiib daro aad u weyn waay baarlamaankan sidiisaba hadda idin sheegay waay qaar wasiir oo xukuumadda ku jiro markii xukuumadda wax laga keen waa difaacaya kuwana wasiiray raadinayaano waxa waaye mar walba maxal lahay ayagoo wasiiradaas dana gaar ah wata ayay mucaarad yihiin hadii wasiir laga dhigana saas oo kale waay kuwa kala maalna waa jiraan oo isku mabda ahayn oo kala maqan markaan walaalayaal waxaan dhihi lahaa in isku maal noqda mar walba danta shacabka ka weyn ninka maanta inta imaanin oo maqan xaflad ku maqan waxa waa lacagta u qaadanay xaraan waay markaan waxaan soo jeedinaa inay maxal dhahay ilaahay ka cabsadaan ummadda ay u shaqeeyaan xisbi oo baarlamaanka la hor keenay la ansixiyo ma jiro xisbi hadda waxa jiro 4.5 ilaa 2020 laga gaaray laakiin waxa waaye hadda dadka xisbiyada waqtigooda lama gaarin baarlamaankan inuu ansixiyo waay adi kullay waxa waaye wax walba waxa ka wanaagsan marka oo kooram la soo buuxiyo maalin walba kooranka waa baaqada sababaha kalifayna saas waay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa mahadsantihiin Somali Cable maanta waxay ahayd kalfadhi loogu tiragalay sharciga kambaniyada ama company looga wax la dhaho oo sharci aad muhiim u ah oo dalka Soomaaliyeed u baahan yahay waligiisna aan hori loo marsiinin baarlamaanka ama sharcigan maanta la marsiinayo ka hor sharci kale ma jirin oo shirkadaha ah fursad aad u weyn oo dalka Soomaaliyeed hadii sharcigan la baas gareeyo dadka kambaniyada iyo registrationska raba inay sameeyaan iyo kambaniyada cusub ha ahaadana kuwa dalka iyo ha ahaadana kuwa dibadda nooga imaado ee maalgashiga dalka u rabo sidaas daraadeed kooram la'aanta baarlamaanka baa maanta u suuragali waysay laakiin waxaan rabaa kulanka ku xigo insha Allah inuu sharcigaas akhrintiisa labaad mari doono sharcigan hadduu marana wuxuu noqon doonaa sharcigii ugu horeeyay ee shirkadaha in lagu maareeyo loogu tiragal ama lagu nidaamiyo oo dalka Soomaaliyeed oo lahaan doono sidoo kale inta waxa irdaha u furmi doono maalgashiyaasha adduunka dadka raba inay maalgashadaan shirkadahooda iyo nidaamkay rabeen in dalka ku maamulaan inuu dalka uu yeesho marka aadaan mataqaana ugu faraxsanahay nasiib darra maanta way dhici waysa laakiin insha Allah kal fadhiga soo socdo sharcigan lagu furi doonaa waxaan ku rajaynahay in la furi doono haduu Ilaahay ira insha Allah 27
bisha afraad 2019 sida la socotaan maanta koramka waa baaqday sababaha u baaqdayna kulay anagu waxaan dhihi karaa xildhibaanadan gudan maxaa la yiraahdaa waajibaadkii laga rabay oo ah inay yimaadaan maxaa la yiraahdaa koramka inay yimaadaan oo maadaama sharciga ugu muhiimsanaa wadankan oo muddo badan soo socday la ansixinayo maxaa la yiraahdaa sharciga shirkadaha maxaa la yiraahdaa inay yimaadaan oo ka qayb qaataan akhrinta labaad ay martay ahayd mar horena waxay ahayd in baarlamaanku ansixiyo runtii waxaan aad ugu xumahay xildhibaanada aanan soo xaadirin baarlamaanka maxaa la yiraahdaa markastana ku candacooda gudoomiye ajenda ma hayo maxaa baarlamaanka loo baajinay haddana aysan ajendayaasha markay yimaadaan aysan imaanaynin waa nasiib darro oo ummaddan mana ay ku dhacday marka saas daraadeed xildhibaanada maadaama magaalada ay ku sugan yihiin waxaan ka codsanaynaa inay yimaadaan maadaama shuruuc badan ay taallo baarlamaanka la rabana in la ansixiyo saad la socotaan guddiyada baarlamaanku waa shuruucda markii loo gudbiyo wax badan ay haystaan laftirkoodii shuruucdii qaar badana guddiyada ku maqan guddoonku ma samayn karo ayadoon soo gudbin guddoomiyaasha guddiyada shuruucdii loo dhiibay ma soo gudbin karaan markaa soo gudbiyaan unbu ajenda ku daraa marka saas daraadeed wixii ajenda lagu daran haddaan la imaanayn waa nasiib daro ummadda Soomaaliyeed ay u soo hooyatay runtii waxaan ka codsanaynaa mar labaad mar saddexaad xildhibaanada waa joogaan kooramyada waa la saga baahan haddii la yiraahdo maxaa la yiraahdaa inay kulanka xiga ay si degdeg u yimaadaan aad u maasantii بسم الله الرحمن الرحيم أنا حلوان عبد الفتاح قاسم محمود waxaan runtii aad kaga xunnahay maanta inuu baaqdo fadhigii baarlamaanka una u baaqdo inuusan kooramkii dhammayn maantana kulay waxa laga hadlayo waxay ahaayeen muxuu ahaa sharciyaadka ganacsiga ama shirkadaha ganacsiga sababta ay u baaqdeen kulay waxa weeyaan waxaan dhihi karnaa waa mas'uuliyad daro waayo qof waliba mas'uuliyad ayaa saaran oo dalkan ka saaran oo xuquuq ku qaata waajibaadkii saaran qofkii hadduu fahmi waayo runtii waa mushkilo maalmaha baarlamaanka uu jirana waxaan labada soconnaa in wadooyinka shacabka inta badan laga xanibo taasoo ayada laftirkeeda wax aad iyo aad u xanuun badan ah haddana waa ayaan daro ayadoo kalfadhigii baarlamaanka uu furan yahay qaarna dalka dibaddiisa waxa isaga maqan yihiin qaarna ay muxuu ahaa iska joogaan muxuu ahaa dalkii laakiin aanay xilna iska saaraynin inay waajibkoodii qaranka ay saarnaa inay gutaan marka waxaan leeyahay waa ayaan daro waa wax aad iyo aad looga qurux badan yahay waa wax aanan micno badan u samaynayn qofka iyo mas'uuliyaddiisaba marka waxaan rajaynayaa dhammaan inay muxuu ahaa xildhibaanada sharafta leh ee walaalaheena ah ama dal ha joogeen gudaha mas'uuliyad ka weyn ma lahan maanta midaan loo igmaday oo ah inay waxa weeyaan kulankan soo xaadiraan si ay u suura gasho shuruucda dalkan u xayiran iyo xukuumaddii oo iyadana waxa weeyaan u xayiran ansixinta shuruucdaasi marka waxay la tahay haddii maalin kasta ay dhacdo in kalfadhigii uu buuxsami waayo ama kooramkii uu buuxsami waayo maalin kastana cid lagu eedeeyo waxay ila tahay mas'uuliyaddaasi inay dhammaan waxa weeye xildhibaanada wada qaadayaan marka in dadku ay isgartaan in garaadka waxa weeyaan meesha hadda uu taagan yahay meel ka sareyso uu tago lana garto xilka aan hayno iyo cid aan u hayno iyo waxyaabahana laga rabo waxaan rajaynayaa kulamada soo socota inay sidaan oo kale waxa weeyaan aysan dhicin ayaan rajaynayaa insha Allah taala waana aad iyo aad u mahadsantiin